السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله درسيgan wuxuu noqonayaa xanaaqa keena isha iyo sixirka part 2. waxaana part 2 aga dhigay darsiga markaan sameeyay ayaa dad badan ila soo xiriiray. waxay yiraahdeen yani anaga ma aragtay haddaan aan hooyo aan ku afcelino mise gabadha hadday ninkeeda ku afceliso wax iyada ka socda maaha, waa wax sixirka u sababa ee ilaahay subxaanahu wa tacaala yowma alqiyaama man kala xisaabtamaayo. oo waxa waa rufica alqalam yani ilaahay uma qoraayo waxaas ay geysatay mise waxa ninkaas uu geysaday oo hooyadiis u geystay. ilaahay ma qoraayo laanna waa sixrinya. درسيga haddaad insha allah darsigaasna hoosan soo dhigayaa insha allah. darsi la yiraahdo ninkeyga waan jeclahay, laakiin darsigaas waxaan ku sheegay in sixir walibo ma aha mid oo maandooriye ah, mid oo qofka ma aragtay maskaxda ka qaadaya uusan ogeyn waxa uu sameynayo. sixir waliba saas ma aha. sixirka waxa darajo kala leeyahay, 3 darajo kala leeyahay. waxa waa level 1 level 2 level 3 خفيف medium يا strong. مد خفيفة مد متوسطة أي مد أدق. مركا مد كخفيف كأي مد كمتوسط كأخفك وحوا إلهي سبحانه وتعالى يوم القيامة ولا حساب تمايا. لأن قفك سوس كنترولي كرا وحي أفكيس كسو بحاي وأوجهي، لكن أسيغان ما أركت حوق ساريني. يعني waxaad arkaysaa qofkii ma aragtay hadalkii ka soo baxayo, markuu hadalkii yiraahdo kadib uu ka shalaynaya. يعني waxa afkiis uu ka soo baxay wala socdaa. sixirkaasi waa mutawassit, midna waa khafiif. kaasi horta ma ba xisaabtan biyaalaba, kaasi ma ba ku jirna hadalkiisa. hadda waxa kaliya aan ka hadlayna waxa waaye midka mutawassitka ah oo dhaxda imaanayo iyo midka oo adag. labadaas aan ka hadalno. midka adag horta waxa waaye maskaxdaada ma ba joogtaba. waxaan u maleynayaa hooyo haddayba ku aragto ma aragtay inaysan waxba kugu qabsanayn, laana way ogtahay maskaxdaada inaysan joogin. maskaxdaada qof maskaxdiisa jooga ma tihid, waxaad ku hadlaysid ma garanaysid. waa qof ma aragtay isku dhex qasmiyaata. waa hadalkaaga kor looma qaado. taas ilaahay subxaanahu wa tacaala kulama xisaabtamaayo, laanna waxa waaye waxaa tahay qof sida sakraan oo kale ah, qofka majnuun oo kale. qofka markuu waasho ilaahay subxaanahu wa tacaala lama xisaabtamaayo. qofka sakraanka ah wax hadduu qalad galo oo qof dilo ilaahay subxaanahu wa tacaala lama xisaabtamaayo, laanna maskaxdii oo wax ku kontrool lahay ma joogto. marka waxa waaye ilaahay subxaanahu wa tacaala arrintaas ma kula xisaabtama. laakiin midka kale ma aragtay oo mutawassitka ah waa midka ilaahay subxaanahu wa tacaala kula xisaabtama. culimadana arrintan waa la weydiiyey, fatwa ay ka bixiyeen. waxay yiraahdeen kullu masxuur ma aha rufa canhu alqalam, ma aha qof waliba oo la sixray ma aragtay ma aha qof oo ilaahay subxaanahu wa tacaala yowma alqiyaama aan la xisaabtamaynin. marka arrintan waa arrin oo very serious, qofka inuu iska ilaaliyo waa inuu ma aragtay oo sixirka shumaaca uu ka dhigto oo yiraahdo sixir waan sixranay, waxaan rabaan samayn karaa ma anfacayo. يعني wax waliba adiga aad ku dhaqaaqaysid ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu kula xisaabtamayaa. sixirna kuma noqonayo waxaad ku badbaado. waan sixranahay wax walibaan sameynaa, ilaahay subxaanahu wa tacaala kaama yeelaya yowma alqiyaama. marka waa inaa ilaahay subxaanahu wa tacaala laga cabsadaa. xanaaq walibo waad kontrooli kartaa. qofkii lagugu diray ha noqoto hooyo ha noqoto mise ninkaaga ha noqdo, intaadan agtiisa aadin mise intaysan ku imaanin dikriga afka ku hay. dikriga afka ku hay waad arki doontaa inuu xaalkaaga isbedelayo. astaghfirullah wa atuubu ilayh. laa xawla walaa quwata illa billah. ashhadu an laa ilaaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasuulullah. xasbiya allah wa nicma alwakiil. laa ilaaha illa ant subxaanaka innii kuntu min aldaalimiin. dikri afkaa ku hay waana arki doontaa inaad bilaawaysid inaad iskontaroosho oo adiga ma aragti waxa afkaa ka soo baxay aad fiirinaysid. waxaadna ogaataa haddii dikrigaas aad bilowdid, waxaan kuu sheegayaa markaas in xanuun uu kugu bilaabanayo. xanuun ayaad dareemaysaa. marka adiga xanuunkii
iyo habaar kee laguu qaatay inuu xanuun ku qabtaa laguu qaatay waan ogahay markaad dikriga aad bilowdo oo ilaahay subxaana wa tacaala aad tala saarato sixiroolaha kuma dhaafayo shayddaanka sixirka kuu sameeyey kuma dhaafayo wuu ku xanuujinaya marka xanuunkiyaa laguu qaatay inteen ma aragtay adiga ma aragtay hooyo ay kaa xanaaqi lahayd oo ma aragtay ugu habaari lahayd mise ninkaaga ma aragtay hadduu uu ma aragtay oo ka xanaaqi lahaa oo ishiis ay ku qaban lahayd oo ma aragtay inkaartiis ay ku qaban lahayd leanno ninkaaga xaqa ayuu kugu leeyahay marka waxa waaye waa inaad barataa sidaad adiga xanaaqaada aad u kontrooli lahayd excuse ha ka dhigan sixir ayaa igu jiro adduunka intaad qasto ood wax waliba aad qasto aad leedahay aniga waan sixranahay ilaahay subxaana wa tacaala yowma alqiyaama kaa yeeli maayo ilaa idaa kunta majnuunan ilaa haddaad tahay qof waaran haddaad tahay markaas ilaahay subxaana wa tacaala maaragtay wuu kaa cafinaya laakiin intii adiga miirkaaga uu joogo oo ma aragtay aad iskontarooli kartid ilaahay subxaana wa tacaala yowma alqiyaama wuu ku weydiinayaa marka sixir walibo su-aasha saasaan aga baxaya insha allah sixir walibo ma aha mid adiga ma aragtay oo ku kontrooli karo waxaa jira sixirooyin oo adiga aad kontrooli kartid oo aad ka xoog badan kartid oo adiga ma aragtay hoostaada imaan karaan marka insha allah arrintaas si fiican ha loo fahmo lianna darsigaa markii aan sameeyey gabdho badan ayaa ila soo xariireen waxay yidhahdeen sheekow anaga haddaan hooyo ku afcelino iyo ninkeena haddaan ku afcelino sixirka ayaa naga keenay marka sixir walba isku mid ma aha isku mid miya maya waay sixir waliba isku mid ma aha marka insha allah hala cuudu bilaysto shayddaanka hala iska naaro dikriga afka ha lagu qabto insha allah ilaahay subxaana wa tacaala baraka ayuu guriga ku bedelayaa hooyadaada way ku ducaynaysaa wa hada min asbaab ashifaa waa asbaabaha ugu degdeg badan ma aragta oo qofka caafimaadku helayo marka hooye ay ku ducayso iyo ninkaaga haddoo jiifto asoo raalli ka ah waa waxyaalaha ugu fiican dadku waxay u maleeyaan qur'aan kaliya in lagu caafimaadayo adkaarta kaliya in lagu waxyaalahan kale ma aragtin way ka tagayaan oo min alcibaada hiya almucaamala mucaamaladaada waa inay ficnaataa dadka sad uma caamaloonaysid dadka sad ula dhaqmaysid ilaahay subxaana wa tacaala ajru kaa siinaya yowma alqiyaama marka waxyaalaha soo dedejiya ka mid tahay inuu ilaahay subxaana wa tacaala caafimaad ku siiyo raaligeli ninkaaga hooyadaada raaligeli waad arki doontaa noloshaada wax isbedel weynaad ku arkaysaa بإذن الله الكريم مركز سؤاشي إن شاء الله جوابتي ساس أيا أقبحي سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته